warka in si dhab loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in la dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa istiidaan la weydiin maayo dilkiisa idan laga weydiinay ma jirto ilaahay baa fasaxay subhanahu wa ta'ala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sida markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kala loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay Sheekh Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah gaalada asliyiinta ayaga ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadu asalka ayaga ka daran ahkaamtu xuduuday ka dajisayna waxa ka daran murtadiinta ahkaamta laga dajiyay baa aad uga adag ahkaamta loo dajiyay gaalka asalka inaga laakiin dhibaatadina Soomaalida wax weey maqaayista inaga khaldantay baa waxa kamida in la yiraahdo Soomaaligu ma bagaaloobo waa Soomaali baa lagu leeyahay waa Soomaali sheekh oo waa inay hebel oo waa Maxamed iyo Faarax waa Maxamed iyo Faarax oo Faarax ma gaaloobo bi Maxamed ajaib diintiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma waa afkaar iyo mabaadi iyo aqiido iyo suluukiyad haddaad qaadatana aad xukun ka qaadan muslim hadii laga waa inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqo isku xigta laga yaabo marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saasma wax la yiraahdo ma jiro Soomaali waa Soomaali waxa way gaal wala muslim wala warkaasi inuu cadaado waa laga maarmaano liyahlika man halaka an bayyina wa yahman hayya an bayyina muslimiinta wax loo qariyo maaha ninkii sida ku galiyo ku dhiman gaalnimada ku dhimo ninkii islaamnimo ku dhimano ka carari gaalnimadoona ka carar laakiin waxa la isku qarin nin walba meeshuu ku talagalay ku talagalo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ayadi hadda akhriyani waman yatawallahum minkum fa innahu minhum aimada tafsiirka sima tabari iyo qeyrkii waxay leeyihiin zaahirkeedu waxa ku soo inuu murtad yahay bal saan soo sheegnay ijmaa' waxa soo guurinaya ibn Hazm iyo qeyrkii كذلك waxa ijmaa' soo guurinaya Sheikh Ibn Baz الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله isaguna wuxuu ku daray nawaaqid la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah waxyaalaha buriya waxa kamida مظاهرة المشركين على المسلمين إن قالوا هيليسود قريب استاكتوا المسلمين وغيلس وردة وردة مسألة سمركة إن هذا يسجل خاصة وقتك هو قال دي أي بشقة كده تواجه ورا قالوا إذا أنت يسسون متحدو هو يبناك يسسون دكتور المسلمين تلاد قال مجرد تي هذا ولا بدلي قال هذا ويبدش وحكوا بدش ما تقنا كور بولكينا كولا midabkiina kula leh diintiina kula sheeganay gaalada barnaamijkeediina fulinay inay gaaladii wakiil ka noqdaan dowlad ninka huwa koobiga oo dhashay murtadiin way oo baarlamaanka ku jira murtadiin way madaxweynuhu waa murtad ra'iisul wasaaruhu waa murtad wasiirada kuwa waa murtad ra'iisul wasaaruhu iyaasu waa murtad qaa'imiin way ilaahay rasuulkiisa diinta way qiyaani nimanka murtadiinta ka fogeeyay xukunka ilayhi awalan haweeneyda u bayla joogtaa waa ka furantahay نيك كسر ويني يسقو إلى دلاسة إلى فديته نيك كاتي ولا شيء على الواجب وحلو المزيد دلاسة لمن كايجا ويني وكفريه فحكم كقوة حكم كالله ضد كمسلمين تا وحكوا جبي حركتين كلها ويل كسبيكو أتامين كلها أيها واجبين مدة فتحات تبي حرائي خلال الله معنا يوم وبختي ناس كبختي أو كله waxaa lagu wareegistaa bariyahan dambe Sheekh Maxamed Bayo Xuseen khayr Allah siiyo waxaa lagu wareegistaa xasaan baa wuxuu fatwooday culimo in la laayo fatwo waa la iska horeeyay fatwada ayaga bilaabay markay fatwoon hayeen 2007 iyo 8 iyo 9 isliina ka fatwoon hayeen meel walba ay la taagay ninkii gaal la sabta ama sidaas sameynaya meel walba lagu diiri karaa nin walba Soomaaliya mas'uulka marna ay lahaayeen xataa kuwa gaal la safan ee Soomaalida caamiyo culimo leh hadaysan ahayn gaalo aysan ahayn waa mufsidiin fasaadka waa loo dili lama nadaynayo fa inna man lam yandafi fasaduhu illa bil qatl qutl ay lahaayeen samaa'a bay xukumaaya tawaa'if bay xukum islaam sheeganaya oo gaalnimo aaminsan ay ku dhaceen culumay xukumaayeen al hukm ala tawaa'if ba xasan laga hayay tawaa'if la xukumo
إذن كان الصواب بالله هوشا هضيتا الحكم على الطوائف إذن كان نوب بالله كتبت كنا مركز عنقنا هل الدوناي لكن فرد ولاد والهبل هل الدلو وحتى يلي لسهل ما يوحن هلوات كآي نكا وادا وحاري فساد شخصيا واللودري كرا هذه وعودين وايو ولا قالوا انيو واللودري كرا الى يومنا هذا نكا هوشا لغا وان امن سناي هوشان لو وريجنا يصل مله هوش وحاوي طوائف يا جماعات بان ببنادن كو حكمني طوائف يا جماعه الا حكمنا اعتام بنو بالله اب نوغو اها فتاويد بين امتنا ودن بلغو بابي هذه خير لغو بابي هذه شر لغو بابي لكن افرادكم ما أفرادان منك أمبر حسدات إنك لشيء زانه وإنك وقوة كسلا لكن هو سبحان كفهمي أنه هو سبحان تكبيرين كراء أضعنا اعتسام طوائف يا جماعات يا أفراد من هذا الضرورة بحث عظماء إسلامية أصبح هذا سبب قبل لي شيء هاي ويقول هذا قميص في معوش دير يسبب وقائم دري بومئة ما لو يسوي وقعت البحر لك بودا بركم في الأجوة بركم الله ما هي على هذا منك اللي يطلب حكمه وهذه احكام الاسلام جو ما حكم الشخصيه جماعات اللي حكوميه طوائفنا ايغا بلاابay افرادنا ايغا بلاابay marka waxa loo wareegaysan waxaan u jeedaa nimanka ictisaab ee leeyahay islaax iyo nimanka suufiyada leeyahay iyo nimanka ka soo horeeyay jadidiyan intii loo toobad keeno hal loo hoydo waxa la heshiiyo ama si hore lagu kufriyay ee baadi lagu kala tagay lambarka la xagsado wiilashii aadinku aasaateen ee tarbiyayteen ee idinka farcameyna yaa laga bari noqonin ee waa garleeyina la garab istaago Soomaali waxay tiraahdaa farta u xumaatay firdhiska kama hadho hadaba ra'iiska ictisaam ee zindiqa uu cadeeyay in awsha meel dhaxal isku imanayo warka nacnacdiisa